بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا وناكسن داودياشا نوحيران نقل صعود برتن كسو دوادا برتيني نعفي ميديا مقالكن وحان كو ايجينا سببها كان عذرك أرقلومية جلوكوما iyo sida ugu haboon ee loogu hortegi karo muuqaalka intaan u guda galin subscribe noo saar channelkan like garee waxaan ugu horeyn isla ogaanaynaa ama isla fahmaynaa waxa uu yahay glaucoma waa cudur ku dhaco indhaha oo keeni kara aragga oo gebi ahaanba luma dareemaha iftiinka waxay macluumaad muuqaal ah u diraan maskaxda cadaadis saarnaa dareemaha iftiinka ee ku yaala xagga dambe ee isha ayaa dhaliya aragga oo luma cadaadiskan ayaa marka hore ka yimaada dheecaan isha buuxiya taasi oo waxyeeleysa aragtida dhinacyada oo ay ku xigto aragga xagga hore oo luma waxaa laga yaabaa in lagu hortegi karo arag lumis oo dheeraad ah haddii waqti hore lala tacaalo haddaba maxaa sababa glaucoma xagga dambe ee isha waxaa si joogto ah loogu sameeyaa dheecaan cad dheecaankan ayaa buuxiya geesaha isha iyo dhexdeeda waxaa kor u kaca cadaadiska saaran isha marka ay xiranto wadada ay u mari lahayd ama u mari lahaa dheecaankan taasi oo keeni karta in dareemaha iftiinka ee isha ay wax gaaraan ama ay dhaawacmaan waxa dhabta ee ka dambeeya sababaha cadaadiska keena lama oga ilaa ay hadda si kastaba ha ahaatee dhaqaatiirta waxa ay baaraan dhowr qodob oo ay ka mid yihiin astaamaha glaucoma waxa ay leedahay noocyo kala duwan taasi oo keenaysa calaamado iyo astaamo kala duwan waxaa jira laba nooc ee ugu weyn glaucomada furan ee open angle glaucoma loo yaqaano badanaa ma laha calaamado ilaa markas heer ay sare gaarto si tartiib ah ayuu cadaadiskan waxyeelo u gaarsiiyaa dareemaha iftiinka muddo dheer kadib taasi waxa ay saameysaa labada indhood laakiin waxaa laga yaabaa in marka hore calaamado aad ku aragtid hal il glaucomaga xiran ee loo yaqaano angle glaucoma waxa ay leedahay cadaadiskan oo dhaqso sare u kaca iyo calaamado dhaqso u yimaada arag lumis oo joogto ah ayaa ku dhici kara maalin gudaheed sidaa daraaddeedna waxaa si weyn muhiim u ah inaad heshid daryeel caafimaad isla markiiba maadaama glaucoma furan ayna lahayn wax calaamado iyo astaan marka laga reebo arag lumis tartiib ah ama indhabeel tartiib ah sidaa daraaddeed waxaa habboon inaad si joogto ah u samaysid baaritaan indhaha oo aad ula socotid wixii isbeddel ay ku yimaada aragga calaamadaha qaar ee lagu arko glaucoma waxaa ka mid ah xanuun indhaha oo daran isha oo gududata lalabo aragga oo qasma aragti ceeryaamo ah haddaba sidee loogu hortegi karaa glaucoma habka ugu fiican ee loogu hortegi karo waxaa looga qaban karaa nooc kasta oo glaucoma waa in daryeel caafimaad oo ku aadan indhaha aad si joogto ah oo sanadla ah u samayso ballan la dhigo dhakhtarka indhaha si loo ogaado waxaa iska bedelay araggaaga iyo haddii uu dhaawac soo gaaray indhahaaga cuntooyinka ka hortagga glaucoma daraasaad lagu sameeyey waddanka Jarmalka ayaa caddaysay in caado ka dhigashada cuntooyinka caafimaadka u fiican oo ay ka mid yihiin badarka noocyadiisa kala duwan qudradda noocyadeeda iyo kalluunka ay u fiican yihiin caafimaadka indhaha daraasaadku waxay sheegtay in khudradda cagaaran sida koostada iyo broccoliga ay ku jiraan maadooyinka shabakadda aragga ka ilaaliya bukaanka iyo burburka halka khudradaha ay ka mid yihiin kabashka karootada baytraafka ay u fiican yihiin inay dejiyaan caabiga gudaha ee isha taasina ay xakamayso khatarta in qofka uu ku dhaco cudurka glaucoma dhinaca kale waxay daraasaadku caddaysay in sigaar cabidda ay khatar ku tahay caafimaadka aragga maadaama uu dhaawac gaarsiiyo dareemaha gaar ahaana dareemadaha aragga sidaa awgeed qof kasta oo balwadda sigaar nuugista leh waxaa la gudboon inuu sigaarka iska daayo isagoo u daneynayo caafimaadka araggiisa haddaba waxyaabaha sababa ama kiciya glaucoma waxaa ka mid ah cadaadiska gudaha isha oo sare u kaco
da-da oo korodho 40 iyo wixii ka sarreeyo inkastoo aragga ay ku xiran tahay arrimo kala duwan sokorowga isticmaalka muddada dheer ee steroidska dhaawacyada isha uu soo gaara cudurrada indhaha qaarkood dhammaanba waxay ka mid yihiin waxyaabaha keeno ama sare u kiciyo. Calaamadaha lagu garto waxaa ka mid ah aragga dhinacyada kala gedsan oo yaraada, indhaha oo casaan ama xanuun noqdaan, qaybta indhaha oo iftiin badan qofka uu ka dareemo ama iftiinka oo hoos u dhaco, madax xanuun joogto ah, aragga oo noqdo xumbo ama aragga qofka oo si wanaagsan u noqon waayo halkii loogu talagalay, iyo dhacaan fara badan ama ilmo isha ka timaada habeenkii marka la gaaro. Haddaba daaweynta waxaan sheegnay dhibcaha goojada eye dropska loo yaqaano waxay yareeyaan cadaadiska isha, waxay si joogto ah loo isticmaalaa si loogu daaweeyo dhibaatooyinka dhinaca aragga. Haddaba dhakhtar ayaa la doonayaa inaad la tashato ka hor intaadan isticmaalin. Dawooyin la cabo ayaa jira, laser therapy waxa la dhahaa ayaa jira oo loogu talagalay in lagula tacaalo dheecaanka isha si fudud loo baaro, gaar ahaana angalada kala gedsan. Dhibaatooyinkan qaliin ayaa jira, waxaa loo adeegsadaa marka dhibcaha ay shaqayn waayaan ama dawooyinkan ay qofka wax u tari waayaan. Sida indhaha loo xafido qofka waxaa la doonayaa marka hore in uu baaritaan ku sameeyo neerfaha indhaha dhexdooda, sidoo kale OCT scan wax la yiraahdo in sidoo kale scan lagu sameeyo, inuu qofka cuno cuntooyinka caafimaadka leh hodanka ku ah maadooyinka vitamin A-da, macdanada omega 3 iyo sidoo kale lutein, spinachka, broccoliga, kalluunka dufanta leh, karootada iyo maadooyin kala duwan, liinta iyo lowska sida aan qaybaha hore kusoo sheegnay. Haddaba waxaa joojiyaa dhibaatooyinkan jimicsi joogto ah, qofka inuu ka fogaado cabista sigaarka, uu xakameeyo cudurrada sida diabetiga iyo hypertensionka, inuu isticmaalo muraayadaha looga hortago UV rayska, in qofka uu yareeyo stresska, kor u qaado hurdada ama uu xoojiyo hurdada, uu ka fogaado riixista isha, cadaadiska badan, inaad xoog isha u dubto ama aad u tuujiso, inaad istaagto oo aad madaxa hoos u dhigto muddo dheer, inaad qaadato alaab culus, ha ku seexan dhabarka belly sleepingka loo yaqaano, dhibaato ayay keeni kartaa. Sidee haddaba guriga loogu ilaaliyaa qofka isagoo gurigiisa jooga indhaha inuu kor u qaado markaasi hurdada, inuu isticmaalo waxyaabaha muhiimka ah, in uu qofka ku mashquulin telefoonka iyo TV-ga muddo dheer, inuu qofka ka nasado shaashadda, ama sidoo kale inuu isticmaalo waxa loo yaqaano 20-20-20 rule oo shaxda loogu talagalay qofka la biriqsiyo inuu banaanka eego marka uu shaashadda isticmaalayo. Inta ayaan kusoo gabagabeynaya muuqaalkan. Fadlan subscribe inoo saar, like gare, la wadaag asxaabtaada.